Tanzania masada rasmiga loo yaqaan United Republic of Tanzania kusoo dhawaada mowduuc kooban oo ku saabsan Tanzania waxay xuduud la wadaagtaa wadamada kala ah Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zambia, Mozambique, Malawi iyo waliba Zaire. Tanzania waa laba wadan oo isku tegay, magacana waxaa laga keenay saddexda xaraf ee ugu horeeya wadan walba. Xornimada waxay qaadatay 1961 waxayna midowday 1964. madaxweynihii ugu horeeyay dalka Soomaaliya wuxuu ahaa Julius Kambarage Nyerere. wuxuu dhashay 1922 wuxuuna ku dhintay London sanadu markay ahayd 1999. waana dalka 11aad ee ugu weyn dalalka caalamka, halka uu yahay wadanka 13aad ee ugu weyn dhulka baaxadda Afrika. aan ku fadhiyaa celcelis ahaan 945,203 kiilomitir isku wareega. waxaa kursiga sare ee madaxweynaha ku fadhiya Dr. John Joseph Pombe Magufuli, ahna madaxweynaha dalka. wuxuu dhashay 29 Oktoobar 1950. tan iyo 2015 waxa uu sidoo kale ahaa gudoomiyaha Southern African Development Community. cuntada loogu jecel yahay dalka Tanzania waa ugaalida, waxayna beertaan kasaafaha. luqadaha lagaga hadlo Tanzania waa laba luqadood oo kala ah Swahili, luqadda labaysana waa English. caasimada dalka waa Dodoma, halka ay magaalada ugu weyn ay tahay Dar es Salaam. Tanzania tirada dadkeedu waa 9.73 milyan oo qof. wax soo saarka dalku waa guud ahaan 78.859 bilyan. wuxuuna caan ku yahay dalka Tanzania laba meelood oo kala ah Serengeti National Park oo soo jiita dalxiisayaasha indhahooda. Serengeti National Park waa seeraha qaranka ee Serengeti, waxayna ku taalaa Tanzania. waxaa la aasaasay sanadu markay ahayd 1951 waxaana soo booqday in ka badan 350,000 oo qof. waxaa loo aasaasay xoolaha duurjoogta oo dhan si ay dalxiisayaasha indhahooda u soo jiitaan. waxaa kaloo caan ku yahay wadanku Kilimanjaro National Park, taasoo ah buurta ugu dheer Afrika, waana buurta labaad ee ugu dheer adduunka. waxay gaadhaysaa 5,510 kiilomitir. lacagta laga isticmaalo wadanku waa shilinka Tanzania. 15 sano ee ugu dambeeyay wadanka Tanzania horakac ayuu sameynayay dhanka dhaqaalaha, wuxuuna ka mid yahay wadamada ugu horeeya dhanka dhaqaalaha Afrika. Tanzania waa meel lagu noolaan karo. magaalada madaxda Tanzania Dodoma waxaa ka qurux badan kana fiican magaalada ugu weyn ee Dar es Salaam. haatanba daawade ha ilaawina ku darso, Tanzania waxay ka mid tahay wadamada ugu dhaqaalaha badan dhanka Afrika.